waxaan kuugu codeeyaan fartayda kuu siiyey anigoo 13 sano dacwadda ku jiray inaan cadaalad helo haddii madaxweynaha cadaalad siinahayn hal iga qabta nimankan odayaal dhalinyaro waayeel haween warbaahinta kula hadlayay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa cabasho ka muujiyay beer ay ku lahaayeen aroori oo u dhow duleedka magaalada Burco oo ay sheegeen in garsoorka gobolka Togdheer ciidan sharci u haysan uu uga xukumay waxaana madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku baaqay wasiirka arrimaha gudaha in arrintaasi wax laga qabto نقول بيننا عدة قصص مدحوين حكومة الصوماليلاند وسير كداخلية شنت نبتقلية قبلك برع تقدر وحن قعد سنة بالكيدة بيرتا بالكيدة دو شن يسديتن كي أي تهاي يقول تشوق أي تهاي كوي شاركنا يقول تشوق يهين سيد اللوجا وفرمروتشي ملكيه بيرتا شرعي قولها وارن آدي آد والله يا بدن كنا هانتي وحن عدسنا هنتاس إن محيه تاي عدالة هنتاس ومحيه تاي أي وحلقة قبته وحد والله يابا قفكي ملكيات دي سيستيشن يسديت هنا محيه تاي أي قدو وانقشند وسعر الدبيرها وورقه دي كون أيهين حيسش أي لقى حكومية أو حادي عادوا لي أبدا. كتير منه إذا يرنا من عد بالله حكم أنا قال شريط تتكوا بالكذي اللي هي شار كبار هنا إذا لو كيرنا والله حكم بتشرع كبار هاي سنة شريط تتكوي وحنا هاي سنة مرخاتية دي درس كبار عضينا يا هدي دولته أيوة خبرنا يسب أرنتها لا أنا وحلاقة قبته هدان عدالة سرنا ولا لا عدالة متسنة ده نورا شيء نقول لنا أرنتان ضياش يقول هيك هاللين برتا الإمام محمود يلا هايستو اللي جو قري ولا قبصي ولا قتري وحنوع أطفالنا عيد كسر قصيصة كود زين بدقليدا وسيرك عدالة وسيرك أرمان جدا مدحون بيرتي الإمام محمود علي محمد وحوي أقونتي بيرتي دي ما نقول لنا شرع درها لوجو قبصدي وحوي وراقب بين الله سمايستي أو هدي من ذكري هاي كو قبصو وسيرك الداخلية محن كورا شنت النبتقلية محن كورا مدحوينها مصبيح عبدي قدوميها محقبات سرع وحن قعد سنينا أرين كاسي دقدقة wax looga qabto sharciga wadanku leeyahay dastuur buu leeyahay anagu sharci baan haysanaa waa 85kii arrinkaasi degdega waxa looga qabto waxa weeyaan halka waxa lagu xukumay baa leeyahay yani qabsasho iyo dad lagu xukumay dadna waxay leeyihiin sharciga noocaas ka kooban bay leeyihiin waxa weeyaan waxaan leenahay cadaaladda ha loo soo noqdo cadaaladda dib ha loogu soo noqdo cadaaladda ha laga tago waxa weeyaan anagu xaqaygan u taaganay mar walba anu taaganahay 85kii dawladdii afweyne iyo taa maanta aynu joogno inta u dhexle ninka mulkiyadda haystay ee halkaa lahaa waxa la yiri waxa lagaga qaaday qabsasho waxa la yaab leh oo qofkii bini'aadmihi la yaabaya oo ka fajacsan yahay waxaynu ka caranay xaqdarro waxaynu ka dagaalanay xaqdarro waxaynu waqti ku burburinay waxaynu raggeenu oo dhan ku laynay waxaynu kuwabkiiyo boodadaba kaga jabnay waxay ahayd sharci doon inaynu sharci helo ayaynu u gurman oo u dagaalanay oo u dilanay haddii sharciga laga tallaabsaday kii aynu u dagaalamayni hadduu kaa maanta yahay haysataa loo xukumay hadday tahay horta waa subxaanallah anigoo ka mid ah agoonta dhulka leh beertaas oo aabahay iga dhintay mulkiyada aabahayna lagu wareejiyay 85kii taa ay tahay wasaaradda beeraha aan ka duwaan gashanahay mudane madaxweyne wasiirka arrimaha gudaha shanta nabadgelyada gobolka Togdheer barasaabka ugu horeeyo waxaan si sharaf leh idinka codsanayaa in dhulkayga xaqdarrada lagu qaadanayo layga qabto dadka xaqdarrada ku qaadanaya ee maxkamadihiina aanay eegahaynin mulkiyadayda sharcigayga halku ka soo baxay aan cid iigu yeedhahaynin markhaatiyadii la ii diidan yahay ee la siinayo garab nimankii igu haystay ee wax sharciya aan sidanin mudane madaxweyne wasiirka arrimaha gudaha inta gobolkan Togdheer xukunteen nabadda ka shaqeysa waxaan idinka codsanayaa hadday Burco laba wasaaradood yeelatayna ii sheega hadday hal wasaarad leedahayna sharcigaygaasi halku ka soo baxay ee wali gobolka ka shaqeeya hala ii weydiiyo hala igu yeedho hawsha cadaaladda in dib loogu celiyo oo ciddii waxa lahayd la siiyo agoonta waxoodii raga kala tuurta u saaran tahay ee waxay sharciyo ay sitaana ayna jirin warbixinta aanu soo gudbinaynaa waa taa waxaanu leenahay waxa laga qabto dib iyo xumaan waa Saciid Cali Cismaan Xaalays telefishinka caalamiga ee gobonimo magaalada Burco xarunta